kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Warsida TV ku soo dhawaada qodobada wararka aan idin hayno kuwooda ugu doorka roonna waxaa kamid ah hal arrin oo fashilisay dhexdhexaadin laga waday madaxda dawladda iyo xubnaha mucaaradka dawladda oo si cad u sheegtay inaan laga laaban doonin go'aankii baarlamaanka ee muddo kordhinta loogu sameeyay hay'adaha dawladda madaxweyne Farmaajo iska diiday inuu la kulmo hogaamiyaha Kenya Uhuru Kenyatta ra'iisul wasaare Roble oo si farsamaysan u xalinaya arrinta Saadiq John intii aad maqasheen daawadayaal waa qodobadii warkay ugu door corona haatan ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe channelka sidoo kale like saar mahadsanid hal arrin ayaa fashilisay wada hadallo laga dhaxwaday madaxda dawladda iyo xubnaha mucaaradka madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu dalbaday in la dhexdhexaadiyo xubnaha mucaaradka iyo madaxda dawladda isla markaana wada hadal loo furo gudoomiyaha midowga Afrika ahna madaxweynaha wadanka DR Congo ayuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu ka dalbaday inuu dhexdhexaadiyo saamileyda siyaasadeed ee Soomaaliya ee xubnaha mucaaradka iyo madaxda dawladda waxaana qoraal uu soo saaray oo lagu xalinayay arrimahaasi madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ku dalbaday haatan hor istaagtay hal arrintaasi oo caqabad ku noqotay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in wax u rabo in wada hadal uu la yeesho xubnaha mucaaradka isla markaana uu kala hadlo arrimaha doorashooyinka soo socda ee dalka iyo sida dalka lagu gaarsiin karo doorasho qof iyo cod ah balse arrinta fashilisay waxa ay tahay in xubnaha mucaaradku iyaguna dhankooda ay doonayaan in haatan laga hadlo doorashada taagan isla markaana aan loo fiirin doorashada soo socota iyo sida lagu gaari karo madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu u ballan qaaday xubnaha midowga Afrika in uu qabanayo doorasho waqtigeeda ku dhacda balse uu u baahan yahay in wada hadal lagala sameeyo arrinta doorashada isla markaana lagala xaliyo arrimaha dhanka mucaaradka ee dalka wada hadalna loo furo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qoraal soo saaray ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo in midowga Afrika uu kaalin horumarineed ka qaato fulinta hanaanka doorashada dalka ka dhacaysa oo muwaadin kasta uu doorasho xor iyo xalaal ah uu markaasi doonayo in dalka ka dhacdo waxaana uu tilmaamay in taageeradooda ay uga mahadcelinayaan isla markaana ay doonayaan in haatan ay qabtaan doorasho dalka ka dhacda gaar ahaan midda mustaqbalka u baahan in laga wada hadlo ee dhanka doorashada qof iyo codka ee dalka ka dhacaysa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa muujiyay sida uu ugu baahan yahay in haatan ay dalka ka dhacdo doorasho gaar ahaan in dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah hadii labada sano ee muddo kordhinta loo sameeyayna ay dhamaatana uu sheegay in doorashada waqtigeeda ku dhacdo uu qabanayo laakiin loo baahan yahay in xalkeeda haatan lagala shaqeeyo maamul goboleedyada qaar iyo xubnaha mucaaradka ayaa si aad uga soo horjeeda doorashada waxaana ay ku adkeysteen in haatan doorasho la qabto balse madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubnaha dawladda ayaa iyagu muddada kordhistay waxaana ay sheegeen in waqti kale aysan sii lumin doonin isla markaana doorasho qof iyo cod inay qabtaan ay diyaar u yihiin balse arrinta fashilka keentay ayaa waxa ay tahay in waqti xaadirkan loo baahan yahay in doorasho la qabto oo laga laabto muddo kordhinta balse dawladdu ay arrintaasi ka cagajiidayso dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa haatan waxa soo gaaray codsiyo kala duwan oo loo jeedinayo oo ku aadan in dalka ay doorasho ka qabsoonto taas oo mid la isla ogol yahay qabsoomida doorasho qof iyo cod ah ayaa qof walba u baahan yahay madaxweynaha ayaana tilmaamay in arrintaasi ay u baahan tahay in garab laga siiyo isla markaana lagala shaqeeyo madaxda dawladda sidii dalka doorashadaasi ay uga qaban lahaayeen haatana muddo kordhintu ay tahay mid sii soconaysa waxaana arrintu ay noqotay mid fashil ku keenta wada hadallo iyo dhexdhexaadin uu doonayay gudoomiyaha midowga Afrika inuu ka dhex bilaabo xubnaha mucaaradka dawladda iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa si cad u sheegtay inaan laga laaban doonin go'aankii baarlamaanka ee muddo kordhinta loogu sameeyay hay'adaha kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in waxba aysan iska bedelin go'aankii muddo kordhinta ahaa ee dawladda loo sameeyay labada sano loogu kordhiyay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa biiqow ku shubtay wararka sheegaya in laga laabanayo muddo kordhintii ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaana la tilmaamay in aysan waxba ka jirin in dawladdu ay haatan ku howlan tahay isla markaana ay ka shaqeynayso inay ka laabato go'aankii muddo kordhinta labada sano ahaa oo loogu daray hay'adaha kala duwan ee dawladda wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa wareysi uu bixiyay waxa uu ku sheegay in dawladdu aysan marnaba
ka laaban doonin tallaabadii ay qaaday, isagoo xusay in go'aankaas uu ahaa howlo u yaalay baarlamaanka islamarkaana aan lagu faragelin karin howlaha baarlamaanka. Waxa uu wasiirku sheegay islamarkaana uu cadeeyey in ilaa iyo haatan aysan jirin wax isbedela oo ku yimid go'aankii muddo kordhinta ahaa ee loo sameeyey dowladda, waxaana uu adkeeyey in go'aankaas ay baarlamaanku qaateen islamarkaana uu yahay mid aysan waxba ka bedeli karin madaxda dowladdu. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday dhexdhexaadinta uu bilaabay Midowga Afrika, waxaana uu sheegay inay soo dhaweynayaan tallaabadaas oo uu madaxweyne Farmaajo horey uga dalbaday gudoomiyaha Midowga Afrika, isagoo oo sidoo kale xusay inay yihiin wadahadaladaasi kuwa fududeynaya in laga heshiiyo arrimaha caqabada ee dhanka doorashada ka taagan. Madaxda dowladda iyo xubnaha mucaaradka ayaana ah kuwa si aad ah iyagu haatan iskaga soo horjeeda, islamarkaana ay tahay mid arrimo kala duwan loo marayo si dalka ay doorasho uga dhacdo, iyadoo dowladuna ay wado dadaalo dhowra. Dowladda federaalka Soomaaliya warkan ka soo baxay ayaa waxa uu gebi ahaanba tirtiray hadal la isla dhexmarayay kaasi oo ku saabsanaa in madaxda dowladdu lagu cadaadinayo inay ka laabtaan muddo kordhinta loo sameeyey, islamarkaana madaxweyne Farmaajo uu qorsheynayo in gebi ahaanba uu isaga laabto, iyadoona warar dhowr oo soo baxay ay sheegayeen in gudoomiyaha golaha shacabka dusha looga saarayo eedda fashilka ku yimaada wadahadalada muddo kordhinta loo sameeyey hay'adaha kala duwan ee dowladda. Balse arrinta ayaa waxaa dowladda federaalka Soomaaliya warka ka soo baxay ay ku sheegtay in marnaba aysan suurtagal ahayn in laga laabto muddo kordhintaasi, wixii haatan ka dambeeyana ay doonayaan in lagala shaqeeyo doorashada, waqti kalena aan lagu daran doonin. madaxweyne Farmaajo ayaa diiday inuu la kulmo hogaamiyaha Kenya Uhuru Kenyatta. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gebi ahaanba waxa uu iska diiday kulan qarsoodi ahaa oo la doonayay in dalka DR Congo lagula kulansiiyo madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta, balse madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la hadlay madaxweynaha wadanka DR Congo ayaa u tilmaamay in madaxweynaha Kenya uusan marnaba la kulmaynin, isla markaana uu u sheegay inuu iska joogo dalkiisa Kenya. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana arrintan darteed waxaa la tilmaamay in uu isaga soo dhaqaaqay wadanka DR Congo, isla markaana uu dalka dib ugu soo laabtay. madaxweynaha wadanka DR Congo ayaa isagu waxa uu waday wadahadallo uu rabay inuu isugu soo dhaweeyo wadamada bariga Afrika dhaca ee Kenya iyo Soomaaliya, isla markaana waxaana ugu dambeyntii la tilmaamay in wadahadaladii laga dhex waday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya ay fashil ku soo dhamaadeen, madaxweynuhuna uu isaga soo dhaqaaqay dalka DR Congo. waxaa la doonayay in arrintan si hoose loogu xalliyo arrimaha Soomaaliya ee dhanka khilaafaadka badda iyo dhulka oo Soomaaliya muddooyinkii dambe ay markaasi kaga soo horjeeday Kenya, isla markaana ay xiriirka diblomaasiyadeed ugu jartay. Midowga Afrika ayaa isagu walaac ka muujiyay khilaafaadka ka dhaxeeya wadamada dhaca dalalka Afrika, waxaana uu tilmaamay in arrintan loo baahan yahay in si degdeg loogu baxo. baaq oo ka soo saarana waxa uu tilmaamay in la doonayo in wadamada Afrika lagu dhexdhexaadiyo khilaafaadka jirana la xalliyo. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa si farsamaysan u xalinaya arrinta Saadiq John. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa haatan u dhaqaaqay sidii uu xalin lahaa arrinta khilaafaadka madaxda dowladda iyo sidoo kale Saadiq John iyo xiisadda ka dhalatay oo haatan maraysa meel cakiran. waxaa jira xubno kala duwan oo la kala safan dowladda iyo xubnaha mucaaradka oo la safan Saadiq John, kuwaas oo hurinaya colaad dagaal sokeeye ah. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaana haatan waxa uu sheegay inuu istaagay, waxa uu kulamo kala duwan la qaatay odayaasha dhaqanka, isagoo oo kala hadlay arrinta Saadiq John. waxa uu cadeeyay odayaasha in dowladdu aysan rabin inay weerarto Saadiq John, isla markaana waxa uu tilmaamay in taliye Saadiq John oo ahaa taliyihii ciidanka booliiska gobolka Banaadir uu markaasi doonayo in arrintiisa uu haatan uu ku sameeyo wadahadallo, isla markaana uu ku xalinayo kaliya arrintaasi, isagoo ka digay in la huriyo colaad sokeeye. waxaana uu sidoo kale ra'iisul wasaaruhu sheegay in wadahadal laga geli doono arrinta ku saabsan xayuubintii lagu sameeyey taliyihii ciidanka ee booliiska ee Saadiq John oo madaxweyne Farmaajo uu ka xayuubiyey dhammaan darajooyinkii ciidan. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa kulamo kala duwan la qaatay odayaasha difaacaya, waxaana shir jaraa'id oo magaalada Muqdisho uu kula qaatay uu ra'iisul wasaaruhu sheegay in uu damacsan yahay inuu qaado tallaabo dhexdhexaadina oo dowladda iyo sidoo kale Saadiq John uu ku dhexdhexaadinayo. taliye Saadiq John ayaa isagoo aag
dagaal oo culus waxa uu ka sameystay xaafadda Shiir Kore oo ka tirsan magaalada Muqdisho waxaana arrintan ay keentay in dowladda federaalka Soomaaliya uu yahay mid dagaal kala hor imaanaya. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa haatan u dhaqaaqay sidii arrintaasi uu xalin lahaa oo muddooyinkii dambe qalqal weyn gelisay amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho. Warar lagu kalsoon yahay ayaa tilmaamaya in ra'iisul wasaaruhu wada hadlo laba dhinac uu furay isla markaana uu doonayo in arrintaasi uu hal dhinac u jiheeyo. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa doonaysa inay gacanta ku soo dhigto Saadiq John isla markaana ay cadaaladda horgeyso oo ay xabsiga dhigto. arrintaasna waxaa ka soo horjeestay dadka iyagu mucaaradka ku ah dowladda oo tilmaamay in dad dhowr ah ay dowladdu oo uu ka mid ahaa wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ay dowladdu dambi la'aan ka dhigtay isla markaana ay doonayso in Saadiq John ay dambi u yeesho isla markaana ay rabto inay xirto. arrintaasna ay sheegeen inaysan marnaba aqbali doonin. ra'iisul wasaaraha ayaa arrintan waxaa la sheegay ka garab siinayaan madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabelle isagoo la kaashanaya waxa uu tilmaamay in arrintan uu si degdeg ah ku xalin doono. gudaana daawadayaal warkii aad kala socoteen Warsida TV wanaga intaa nabadgelyo. Warsida TV wanaga intaa